أنا رجني دجالك إن ورسنجلي جالي إذا كيجي وانو كان ballan waa anigii kugu qaaday xabad dambe hadday dhacdo inaynu isugu nimaadno buuhooda ballan waxaan ku qaadaynaa inaad ka qaxdaan meel kasta oo aad degan tihiin 2025 kugoosha naaraha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا كحرن channel كنا دمانتي سو dhawaada saaxiibayaal caaw iyo abdeedid ugu dambeeyay ama qodobada marka ugu xiisaha badan iyo videogaas aynu hadda arkaynay ama aynu ku bilaabanay oo ahaa beeshii habar jeclo oo iyadu marka qabqabad ah oo taagan ilaa iyo buuhoodla ilaa iyo laascaanood iyo meel walba ayaanu qabsanaynaa kadib markii ay dhageysteen buurmudow iyo hadalkii habeenkii xalay ahaa hadaba barnaamijkeenan waxaan rabaa inaan ku soo qaato dhowr qodob oo aad u xiiso badan aynu uga hadli doonno markaas go'aankii ka soo baxay shirkii beeshii warsangeli iyo qodobadii ka soo baxay falcelin intee in la eg ay markaa ka qaateen reer Somaliland ama boqor buurmudow markaa isagoo habeenkii xalay ahaa soo hadlay oo hadalkiisu markaa kuma aadanayn shirkii kaliya beeshii warsangeli boqor buurmudow waxa uu isku dayay habeenkii xalay ahaa dhowr meeloodba markaas in uu kala gooyo ama laba u kala qaybiyo تكواد أو مركز إسكودي إن بيشي ورسنجلي إيه بيشي دولبهانته لبا قبيل أو ككرديو تان لباد أو إن بيشي دولبهانته دحدة دي ومركز إسكوديو إن أو كلا قيبيو أو لبا كرديو كدبنا جراد جامع جراد علي جراد كي جود إيه مركز بيشي دولبهانته أما بيشي هرتبا وده نين أنو مركز إسقى النبض كلا تشانينو أما أنو النبض ويدينينو معهم وسوقا تدور قبيل أو مركز دهاي iyaga ayaanu dhulbahantay haddii lacala aanu u baahno markaas kala hadli doonaa wax nabada balse waqtigan aanu hadda ku jirno ama aanu taagannahay annaka iyo beeshii dhulbahantay wax nabada nagama dhexeeyaan boqor buurmudow sidoo kale waxa uu aflagaado iyo hadal aan markaa la qaadanayn u soo jeediyey garaad jaamac garaad cali garaadkii guud isagana jawaab kulul oo waafiyey waa la soo siiyey waa aynu u geli doonaa intaynaan qodobadeenna marka u gelin waxaan rabaa inaan kusoo qaato habeenkii xalay ahaa amaba laga soo bilaababa 24 saacadeed u dambeeyay ayaa waxa dhacday in ciidamadii Somaliland ee markaa iyagu meesha ugu sokaysa ama xuduudaba fadhiyay askari kamid uu markaa isa soo dhiibay askarigaas oo askari nin markaa reer Somaliland aan ahayn horgal markaa isagu dhinacaas ka tirsan askarigan habeenkii xalay ahaa ayuu isa soo dhiibay waliba ciidamadii markaa waxa uu sheegay inuu ka tirsan yahay Somaliland iyo maamulkeedii ama Somaliland iyo dawladeedii oo uusan ka mid ahayn ciidamo beeleedkii markaa ayagu meesha joogay waxa aanu sheegay askarigaasi in ciidamo badan oo markaa ka tirsan ciidamadii Somaliland oo meesha jooga ayagu markaa ay diyaar u yihiin inay isa soo dhiibaan maxaa ka runa maxaa ka been ah waa aynu arkaynaa qodobkeena koowaad ee aynu ku bilaabanaynana isaga aynu ka dhiganaa bal ila fiiri meeshaan أركان دقن بان كاميرا waan gartay marka milashiyadka ka mid ah militariga militariga ka guutada koobiya boqoliya fartan aywa waan gartay marka sidaas darteed baan ugu sheegtay aan isku dhibnay ciidanka qaarna way soo socdaan waan gartay dowle haye marka waa taa waa la isku kiisoo wada dhiibayaa baan leeyahay wax Soomaaliya la yiraahdo dib uma jirin waan gartay dadkaas ma wada bashay ka waran meesha ka timinta meeshaas waxaa dadka jooga amisin way isa soo dhiibayaan oo waxay aaminsan yihiin ayuu dhahay in aysan markaa jirin wax Somaliland la dhaho oo ciidamo badan oo markaa iyagu reer Somaliland ayaaba diyaara oo raba inay isa soo dhiibaan askarigaasi marun buu sheegayaa isagu isa soo dhiibay ma been buu sheegayaa waxa ka daacadda ah ee uu markaa u yimid horta waa wax la ogaan doono oo waqti ayaa la haystaa arrimihiisana waa la baari doonaa ujeedada uu markaa u soo baxay ee uu isku soo dhiibay ee uu leeyahay markaa ciidamo Somaliland u dhashay oo ka tirsan maamulkii Somaliland ama dawladii Somaliland ayaa diyaar u ah inay soo dhiibaan waa mid baaritaan u baahan qodobkaasna duuduubkiisa halkaas aynu kaga tegaynaa waxaan rabaa marka inaan u galo ninkii boqor buurmudow ahaa isaguna uu afka furtay oo uu ku soo kala qabtay shirkii la socday oo uu beeniyay heshiiskii markaa 1993 la kala saxeexday iyo in aysan wax maamulo magaaladii Ceerigaabo ku soo yeelan waxa oo kale oo uu meesha ka cadeeyay buurmudow in beeshii dhulbahante aysan magaalada Ceerigaabo dib ugu soo laabaneen ama aysan waxba ku lahaynba beeshii warsangalna waxa uu dhahay
dagaalka aad qaadateen ayaanu annaguna markaa qaadanay oo waanu isu soo diyaarinaynaa dagaalna waanu soo diyaargaroobaynaa inkastoo ay ka wanaagsanayd ama aynu wax wada hagaajisano taasina waa ay suuragal weyday bal waxaan rabaa marka boqor buurmadow iyo inaynu isla aragno fideogan xalay hadalka uu ku bilaabay oo dhinac walba uusan markaa ka leexan guryihiinna cashuur laydinkaga qaadaa xoolihiinni baa cashuurtii lagu bilaabay boosaasay noognoo maanta cashuurtii shabaab iyo daacish qaateen maanta horena gala dagaalkaa lagu iclaamiyo dagaal baa abtiyaday qaateen geeyad weli kamay degin dhulbahante ursangelina wuu qaatay 2 bilood oo uruusiya oo guddi loo sameeyey oo dagaala wuu qaatay orannaguna erigaabana waa joognaa waxna waa urursanaynaa wallahi waddadii nabaduna nagama lumin wallahi inaanan marna nabad waxaan ahayn wax lagu gaariyo ogeyn hadalkana kow waxa uu ku bilaabaybo puntland ayaa cashuur laydinkaga qaadaa al-shabaab iyo daacish ayaa cashuur idinka qaataa hadda buurmadow ha ogaado puntland waxa la dhaho waxa iskale oo samaystay iyagoo mid ku ah reer harti la dhaho horta taas aamin reerkaasina waa dhowr beelood ayuu ka kooban yahay majeerteen baa ka mid a warsangeli baa ka mid a dhulbahantaa ka mid a deshiishaa ka mid a iyo dhowr beelood oo markaa iyaguna beeshii harti ka tirsan wax ay beel goonihii iyadu leedahay ma aha waa wax laga wada tirsan yahay canshuur haddii la qaadana waa wax reer puntland iyo beeshii harti oo dhan marka ay wada siman yihiin daacishta ama al-shabaabka uu leeyahay canshuur bay wax ka qaadaanna kuwaas cidna waxba kama qaadaane waa nimankii naaraha laga waraabinayay ee meydkooda iyagoo ajnabi xitaa u badanba aad u jeeday nimankaasina waa argagixiso puntland kaliya ama harti kaliya cadow kuma ahane soomaali oo dhan iyo adduunkii dhan ayay cadow ku yihiin in la iska celiyo oo meel looga soo wadeejeystana waa mid meesha taalla tan kale waxau dhahay garaad jaamac gala dagaalka ayaa hadda ka hor dagaal sidaa ku qaatay oo ku baaba'ay kumuusan baabi'ina guul ayuu ka gaaray maantana wuxuu dhahay beeshii warsangeli ayaa qaadatay oo 2 bilood isku soo diyaarinaysa inay isku soo hubeeyaan beesha warsangeli waa hubaysan yihiinba isma soo diyaarinayaan balse go'aamadii ay qaateen sida ugu dhaqaaqi lahayn ayay hadda falowgeed ku jiraan isna wuxuu taagan yahay go'aan ayaanu qaadanay annakuna hub aruursi iyo waxaanu ku jirnaa inaanu markaa dagaalka usoo diyaargarowno ragaygi diidanaa baa ilaa saxaabad in dagaal lagu qaado in cid xoog lagu muslimiyo markaa waxaan leeyahay maanta shirkaasina waa loo digi awal wanaag baanu islahayn baa xoolaa loo dirayaa waxayna ku habboonayeen warsangeli waxaan u soo jeedin lahaa war annagu daarna idinkuma haysano dooxa aa leedihiinna ma haysano magaalo ay wax ku leedihiinna waxba idinkama sheegan mayno melihi waxba kuma leh laakiin waxaan idiin sheegayaa dhaleecaynta intaa leega ka soo baxday ee ahayd qodobka saddexaad ee ahaa isaaq ayaa buriyey 1993 heshiiskii lagu galay ceerigaabo bishii 11keedii isaaq baa buriyey arrinkaasi dembi yar maaha colaadii ay dheerkii aan raggii ganacsatadii magaalada joogaan ahaa ganacsigii isaaq oo dhan wuxuu yaalay beriga ceerigaabo yaalay ilaa maydh xoolihii ceerigaabada yaalay ee bakhaarada dhan buuxiyey waa la biliilqaystay beesha warsangeli 6 weyn bay ku lahayd biliilqada sidaan ognahay majoritigu laascaanood buu galay waana la dhacay xoolahaas waxaan u malaynayaa annagoo weli ka hadlayna lama arag waxaan aad ula yaabay shirku inuu tarkiisiyey aad u taabtay biliilqo ceerigaabo ka dhacay ilaa iyo hadda waxa uu ka dhammaan layahay dagaal ayaa qaadateen beeshii warsangeli dee meesha awal wanaag ma yaalay waa yahay waa maya wanaag iyo asxaan la isku falayaa midna muusan oolin oo xabad ayaa markaa taagnay waa run magaalada ceerigaabo wiilal dhalinyaro ah oo beeshii naaleeye axmed ah ayaa xabado ka riday ayaga hortoodna waxaa jirtay in dadkii shacabka ahaa ee degnaa ee beeshii harti loo sheego inay markaa magaalada ceerigaabo ka soo baxaan oo dagaalna ka dhici doono markii ay ka soo baxeenna wixii dhaca weyne ognahay iyo bililaqadii dhacday taas miyaa lagu hortagay waa maya nimankaas naaleeye axmed ama xabad ha ridaan ama waxa bilaabaan wiilashaas haddii ay dhibaatada sameeyeen oo meeshii dagaalna horeyba lagu baaqay macnaheedu ma aha warsangeli ayaa joogaya oo dhulbahanta ayaa ka baxaya meeshii waa dad wax wada qaba isku meel ayuunbay markaa somalilan ka taagan yihiin sida hadda beelihii kale ee reer somalilanna ay u wada socdaan oo isku garab taagan yihiin oo sida hadda meeshaan ila fiiri nimankaanoo kale weynina cismaan buurmadow boqorka boqorada somalilan boqorka geeska afrika boqorka saaqbari nimankaas aynu hadda u jeednay
waa jabhado beeleedkii markaas ayagu ama ciidamadii beeleedka iyo reer Somaliland intoodii kala oo dhan oo markaa ammaan meesha kala kor dhacay boqor buur madow oo taagan adiga ayaa wax walba noo ah in dagaal gali dagaal ayaanu qaadanay tan odayaasha marka laga soo tago ama ciidan ha ahaadaan ama wax kala ahaadaan gabi ahaanba reer Somaliland iyagana kowba waxa ka go'nay dagaal oo waxay aamineen in marka dhulkii looga baxay dib damban aan marka loogu soo laabanay wali kamayna bixin marka buur madow videogaana ila fiiriya waa videoga marka uu aflagaadeynayo garaad jaamac garaad cali ugana hadlaya markaas ila daawo meeshaan aan habar jeclanahay dhexdhexaadkii anagoo ku jira markaan aragnay dagaalkii in warsangeli galay ciidankayga waanu keenay bay noqoto in qoryaha la tijaabiyo qoriga tijaabadu dami weydana ciidankayga ceergaabo istaamay ku yahay diyaarna wuu yahay saaxiibkay cadda gude inaad erga cali shirka adaa qaban qaabiyey xaalka lagu bixinayay annagu haddaanu reer bari nahay bililaqada ma hayno ina yaro gidaar wax ku qortay haday jirto aan adeer anigu ahay nuuraaf xaslayada guriga Muuse Ismaaciil baa wax lagu qoray xaalka halkaad geynaysan ragina halka ka hadlay iyo ciidaas siinaysan idinka garanaya shirkaasi wuxuu annaga midhiis noogu muuqdeen shir colaadeed maanta diyaar uma nihin dhulbaatay inaan la xaajoono inta taladooda garaad jaamacay ka goodo haddiise garaadadii aanu naqaanay maxamuud garaad siyaad maxamuud axmed garaad haddii aan labalay raggii talin jiray ee tala aanu garaadadoodana samatan isbadan ku ognahay ay talada qabtaan mar walba gogol iyo nabad baanu diyaaruna noona muuqato meel aan nabadi ku soo muuqana dadkayga inaanu lugayno oo been u sheegno oo nabaday gacmaha iska taagtaagno nin gacan ku dhiglaahina uu yahay maanta taladii dhulbaante oo gacanta ku hayo taladii dhulbaantana isagay gacanta u gashay isagayna ugu jirtaa okay boqor buur madow hadda videogiisa halkaas aynu uga tegaynaa balse wuxuu dhahay colaadda qorshaysan ee ceerigaaba loogu talagalay in lagu soo qaado annagu waanu ka warhaynaa diyaarna waanu u gelaynaa beeshii warsangelina kamaana filay in markaa ay dagaal qaataan oo inay nabadda dhinac ka qaataan ayaanu ka filanaynay oo jidkii dhulbaanta maray oo kale aysan marin odayaashii marka cadda gude iyo caaqiladii iyo salaadiintii kale ee beeshii garxajis ee hargeysa ka soo hadashay iyo kuwii ceerigaababa ka hadlay ee nabadda ku baaqay waa uu eedeeyey oo eed ayaa uu u soo jeediyey buur madow wuxuu dhahay annaku maadaamaanu nahay reer bari annaka ayaa go'aankeeda iska leh dagaal ayaanu ku baaqaynaa dagaal ayaanu gelaynaa oo dagaalka ay qaateen ayaanu la qaadanaynaa marka horena qalad ayayba ahaayeen inay odayaashaasi nabadda ka hadlaan oo ay arrinka sidaa u dhigaan keligiisna maahane dhammaan sidaas ayaa la wada qabay marka laga reebo odayaasha salaadiinta iyo caaqilada moogiye waxa kaloo uu dhahay oo uu markaa aflagaadana u geystay waa garaad jaamac garaad cali iyo beeshii dhulbahante oo uu damcay iyagiina markaa inuu kala qaybiyo oo dhahay garaad jaamac garaad cali marnaba horta annaka dhulbahante heshiis lama gelayno sababtoo ahna garaad jaamac garaad cali inta uu dhulbahante markaa isagu hoggaanka u hayo annaka iyo dhulbahante wax nabad ama heshiis ah oo markaana dhex marayaaba ma jirto walwaalida eeg oo yay dhex marayaan marka ama heshiiska markaa la qaadanaya haddii ay dhacdaba in markaa habar jeclo lala heshiiyo dhowr beelood oo kale oo dhulbahanta ayaa u sheegay oo dhahay ayaga nabad ayaanu la geli karnaa oo ayagaa weligood marka talin jiray ama talada hayay waa in garaad jaamac garaad cali meeshii laga turaa iyagu ay ku soo laabtaan kadib ayaanu markaa heshiis iyo wanaag marka la qaadanaynaa yacni caqligiisu halkaas ayuu marayaa inuu markaa dhulbahante dhexdiisii kala shaxaado ama uu kala reebo warsangal iyo dhulbahante kala kaxeeyo dhulbahante iyo majeerteen warsangal uga dhigo dad xun iyagu inay gooni uga soo leexdaan oo marka ay habar jecla la heshiiyaan ama ceerigaaba ay heshiis ku qaataan yacni ninkaas weyn caqligiisu intaasuu siiyey jid kaloo wanaag ama waxaas xitaa muusan eegin dagaalna uu qaatay dadkiina inuu kala furfuro ama uu kala kaxeeyo ayaa uu markaa ku fikiray ninkaas buur madowna sheekadaas waa ka halowday isagana karbaash iyo jawaab ayaa loo soo diray oo ninkan isagana odayga ah ayaa u soo diray waa boqor shaarub ayaa isagana markaa loogu yeeraa boqor shaarub waxa uu taagan yahay jawaab ayaan u wadaa boqor been madow oo beesha warsangeli iyo beesha dhulbahante hadalladii uu marka soo dhex galay ama midna uu soo dhawaysto midna uu markaa shisheeye ka dhigto bal ila fiiri marka karbaashkaana xalay hadalkiisa waxaa ka mid ahay haweenayoonis waxay nagaga baxaan ballankii inay nimankaa la heshiiyaanna maha annagoo warsangeliyo dhulbahantaana wuxuu rabaa inuu laba qolo noola kala hadlo oday weyn oo isim sheeganaya inuu sidaa u hadlo marka de boqor been madow sababtaan u leeyahayna waa nin munaafiq oo been badan wuxuu caayay oo runtii arrinta gudnimada ah oo uu ku soo celceliyey inuu caayo xurmad le garaad jaamac garaad cali boqor been madow waxaa leeyahay warsangeli haddii aad is leedahay wax gaara idinka dhaxay
حنقول دغلمي دعايدا عيدي كراجع قرال علي يسود السيد سودان عبد السلام وسجل البانته لو اسم وكلا هل سدوي horta hadalkiisa halkaasaan kusoo gabagabaynayaa bointeeda marka meesha ku jira boqor buur madow isaga oo dagaalkii dawacale ka dhacay ee kilka shanaad ayaa uu ka xanaaqsanaa oo uu dhahayay annaka oo midaysan aynu samayno ama aynu galno dhulbahante iyo warsangelina waxa uu damcay inuu markaa kala qaybiyo oo uu laba ka dhigo waxa uu damcay garaad jaamac garaad cali inuu markaa eedeeyo ama uu caayo ama uu aflagaadeeyo Suldaan Siciidna markaa uu ammaan ku sheego balse Suldaan Siciid iyo garaad jaamac garaad cali hartiga kaloo dhan ayay isku meel u taagan yihiin oo go'aanka maanta garaad jaamac garaad cali uu soo jeediyo waa xaqiiq warsangeli kama soo horjeesanayaan go'aanka uu Suldaan Siciid soo jeediyana saas la kama hor imanayaan oo way qaadanayaan oo waa isimkoodii waa suldaankoodii waa garaadkoodii يعني واحد كلية تقطع عسى وانت اسكلي مركا هذا اللي شيء فيديو قلنا واحد رأينا هذا كسوق قبل انت مركا فيديو لما يوحي ابديت مركا كسوق ان شاء الله سوي مع الدونا واحد كيتجيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.